marka laga hadlayo wasiir arrimaha dastuurka kale waxa la yiraahdaa wasaaradda waxa loogu soo daray wada hadaladii khaatumo oo dastuurka ayaa la furaya bal arintaasi halkee ayay maraysaa waxa weeye taasi waxa la yiraahaa iyo maxaa dhahay dastuurku wuxuu yahay way kala duwan yihiin dastuurku waa qaranka Soomaaliland oo dhan buu jiraa cid kasta oo waxa weeyaan magacaas leh oo Soomaaliland ah iyo shacabkeeda marka wax kasta oo danteeda ah waxa weeyaan shacabka Soomaaliland iyo dantiisa ah dastuurku waxa weeyaan iyo xeerarkiisu waxa weeyaan de mas'uul bay ka yihiin dastuurka khaatumo ma la furaya khaatumo dastuurka ma la furaya dadkii uu hogaaminayay Cali Khaliif Galeero de codsaday in dastuurka waxyaabaha lagu heshiiyay ka mid ahayd in la furo ma la furaya dastuurku wuxuu leeyahay nidaam loo furo oo waxa weeyaan wuxuu leeyahay xeerar iyo nidaam loo furo buu leeyahay wuxuu leeyahay shuruuc iyo nidaam loo furo ayuu dastuurku leeyahay dastuurka waxa weeyaan inaga sameeynay wuxuu leeyahay qaynuun loo raaco cid kasta oo maxaa dhahay dal la moodo oo waxa weeyaan aan ahayn oo kaliya maxaa dhahay qaatimo laakiin dhamaanba wax kasta oo danta Soomaaliland ay ku jirto dastuurku waxa weeyaan isaga mas'uul ka ah wixii dal la moodo waxa weeyaan waa la furayaa wax kasta oo maxaa dhahay dani ay ku jirto oo dastuurku waxa weeyaan uu leeyahay wax lagu dhaqmo iyo wax la bedeli karo iyo wax lagu soo daraba sharcigu samay uu ogol yahay heshiiska Cali Khaliif waxa ku jirtay in dastuurka la furo arintaasi wada hadaladii kale waa lagu soo hadal qaaday in badan ma jirtaa in dastuurka la furay baan ku weydiiyay wasiir haddii aad fahantay waxaan ku si fiican kuugu sheegay in waxa weeyaan dastuurka Soomaaliland ay dani ugu jirto dhamaanba shacabka Soomaaliland wax kasta oo ay dani ugu jirto in la furo in la bedelo in la daayo intaba waxa weeyaan ay suurtagal ka tahay oo dastuurku mas'uul ka yahay waxyaabaha Cali Khaliif iyo maaragtay wada hadalada markii laga hadlayay ka cabanayay waxa kamid ah saami qaybsiga oo kale arintaasina dastuurku kama hadlo marka macquul miyay tahay iyadoo saami aan dastuurka ka hadal in la furo dastuurka adeer waxa weeye waxaan ku yiri Soomaaliland dastuurkeedu wuxuu mas'uul ka yahay wax kasta oo danta Soomaaliland ay ku jirto ama ha dhawaato ama ha dheeraato sida daraadeed wuxuu leeyahay wada loo maro ta sharciga ah sifada sharciga ah loo maro baana loo maraya waxyaabaha marka wasaaraddan qaybta dastuurka loogu soo daray in dastuurka la furayo kuma jirto miyaad leedahay anigu kuma oran dastuurka waxaan kuugu yiri haddii aad fahmi karayso dastuurku wuxuu mas'uul ka yahay wax kasta oo danta Soomaaliland ay leedahay ayuu maxaa dhahay ay danta Soomaaliland ay ku jirto ayuu dastuurku mas'uul ka yahay marka haddii la garto in la furo iyo haddii la garto in la bedelo iyo haddii loo codeeyo la daayo intaba waxa weeyaan waa shuruucda dastuurka ka mid ah marka wada hadaladii iyaga ka waran halkay marayaan mar haddii dastuurkiina imanka wali aan la furin waqti aad wali aan aydan sheegin waqti la furayo iyaga halkay marayaan wada hadaladii aad wada hadaladaas waxa weeyaan meel wanaagsan bay marayaan aad iyo aad u fiican marka qorshihii dastuurka inta badan la hadalhayay halkay uu soo ku dambeynayaan adeer dastuurka la hadalhayay anu garan maayo waxaad ka sheekeynayso laakiin waxaan ku yiri dastuurka Soomaaliland waxa weeyaan waa dastuurka Soomaaliland waxa weeyaan isaga waxa weeyaan lagu dhaqmaa isaga ummadan iyo qarankan halkan ku soo gaaray isagu waxa weeyaan wadadii fiicnayd waxa weeyaan halkan lagu soo gaaray iyo horumarkan maanta waxa weeyaan waa dastuurka Soomaaliland bacdallahi marka laga reebo maantana waxa weeyaan meel wanaagsan ayaan marinaynaa qodobo ayaa jiray Cali Khaliif oo codsaday in dastuurka wax ka bedel lagu sameeyo qodobadaasi maxaad nooga sheegi karaysaa muhiim ma aha inaan maxaa dhahay wixii Cali Khaliif qodobada uu codsaday waa qodobo la yaqaano qodobaanu gacanta ku hayno qodobaanu isla garanayno waa qodobo muhiim ah waa qodobo internetka ku jira waa qodobo cid waliba hayso waa qodobo la isla gartay marka waxa weeyaan waqtigooda sugaysa meelad noo sheegi karahayn adigu maadaama aad wasiirkii dastuurka tahay haddaan ahay wasiirkii dastuurka waa muhiim waxa aan kuu sheegay inaad sideeda u qaadato waayo waxa weeyaan waa qodobada aad og tahay waxa weeyaan ah in nabad lagu wada noolaado in la heshiiyo in qarannimada Soomaaliland inay mid tahay waxa weeyaan oo la isla qaatay iyo wax kale oo badan oo kamid ah dastuurkuba intaa uu qorayaa laakiin Cali Khaliif de qodobo codsaday in dastuurka maxaan ku raahdaa wax ka bedel lagu sameeyo qodobadaas aan ku leeyahay maxaad nooga sheegi kartaa adeer qodobada waxa weeyaan uu dastuurku qoray la isla qaatay waxa weeyaan way farbadan yihiin sidaa daraadeed waxa weeyaan meel wanaagsan oo noo marayaan
ma is leedahay ujeedada wasaaradda qaybta dastuurka loogu daray muddo kooban bay sii jiraysaa haddii arrimaha Cali Khaliif iyo Khaatuma ay ka cabanayaan la dhameeyo qaybtaasi halkaasi ku istaagaysaa waxaan u malaynayaa inay wax badan ka khaldan yihiin haba yaraatee dastuurka Somaliland aanad maxaan lahaa aqoon u lahayn Somaliland aanad aqoon badan u lahayn marka waxaan oran lahaa waxa aad u fiican inaad runtii wax badan ka soo ogaato marka aad qof mas'uul ah wareysanayso si aad maxaan lahaa u fahanto una weydiiso wax sax ah oo wadada maray dastuurka Somaliland wax qaaliya oo wax ku weyn maaha ereyada aad ku dhawaaqday iyo afkaad kaga hadashay wax geey maaha marka waxa weeyaan anigu ku ixtiraamaya inaad tahay nin dhalinyaro ah oo maxaan lahaa haddana waxa weeye dastuurka Somaliland waxa weeyaan sii jiray oo sii joogi doona mana aha sida meelaha qaar waxa weeyaan aanay runtii waxaan dastuur ba ahayn ay dastuur ugu sheegaan laakiin waa dastuur Somaliland meel ku soo gaadhay wax lagu doortay waxa weeyaan wasiir su'aasha mar walba waxay tahay adigoo raaliya baahida waqtiga aan ku ballanayno taag baahida aan ku leeyahay waxaan ka wada leeyahay in haddaad su'aal dambe qabto ay waqtigeeda kala ahaato ma waxaan wasiir waxaan jeclahay su'aal ku weydiiyo wasiir. ayay fadhiidin Fadhi wasiir waraysi ma qabanayna. ma